حق النبي يصلي جنا بالحديث كان فيه حديث كواد دراية دماتك هدي لقى قبته حل جي النهاية مركي صحابي أو دهاي سيدك محمد كاهو أرين كيجو دم بصلي جان كدجة إلا ثلث إيه ربع إيه ثلثان إيه نص إيه وحبو صامر موقته مركز النبي أصدق وجوابه يا سيد أبي ومدي سأردنا الله برمايا متكستو كمده وحوده ما أقتها قفك وحا وجعلي هاي وإنتي رانيدا لغا فايدو دنب دافنا وهلو إلهي إن حريستي سنة أقارو سد حدث كليا ربنا إنان إشارنا بمشيئة الله تعالى حديثك كواد الله با كجرو نبي وحوده هاي إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك أبي يقف كستا أو أمدا محمدية كترسن صلي هدوب بديه نبي وحول لي هاي كربضة هذا ولا جاء فلنان أو ولا جاء كافن ذنبي جاءنا ولا دافع مركا ضدك وحى قلبي جوده كأولولايه مروجا كمده حنون يا صبال نمو يا أماه يا كيرو يا وحى اللي يقول لي يا دباتوين كلام صلي النبي هدي الله بديه أديجا يا والبهار وإزديسان qaybta ugu dambaysa xadiidka waxa waaye dambigaaga in la dhaafayo ma qofan ilaahay caasin ya jira maya saqaa'ir kabaa'ir xuquuqullaahi xuquuqul khalqi dhiqa la dhaxgalay asbaabta ghufraanka waa jawaan mugis waxa kamid ah on hadda qaadanayna salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waliba kurbada iyo maghfirada waa adduun iyo aakhire ogow wax la kala teelaynaya ma jiro الدون إيا آخرة كربة ما أركيسي الدون إيا آخرة ولوجود دم بدافع ساسوا حديث كي كلا صحيحة أصجنا وحوها من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 نبي وحول الله يقف كي هل جر يصليه إلهي يا طبن جر نحريسنا هل نحريس أو إلهي يا أديجا يا وحي بكو تعلقه يا الدون كذا يا آخرة هذا idinku filan markaasa hal iyo laba maahe halkii salli bedelkiisa iyo abaalgudkiisu 10 naxariis oo ilaahay ah marka xadiidkaas halkii salli in 10 naxariis oo ilaahay laga helayo iyo sheeg xadiid kale wuxuu ahaa nabiga hadaa 10 jeer ku salliso 100 jeer ilaahay ku naxariisana marka macnaha xaqiisa la aado hadaa 100 jeer nabiga ku salliso كن جرى إلهي كون حريصنا كن جر هداد إلى النبي كوصلسه قف كاس جركي سنار ولا حرمي إلهي عرديسة يا عذاب كيسة يا عقاب كيسة أو جهنم يا جحيم أي كم تاي اسمع أركيسان لبدا حديث وحن كفى إذا يسني ورك إن لقرطه لو شقيا للربا موقته وحن لشيء يدك تجلي كبحي مقل كسع معها diinkeenu ku shaqayn iyo amal fal waay suurada al-asr oo lagu sheego thuluthul ilmi in ayadaba uu ku dhex jiro ilaahi asriga markuu ku dhaartay uu yiri dadka khasaaray dhex ahaadeen afaru ka soo reebay illa alladheena aamanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kuwii rumayn la yimid oo amal saalix la yimid oo xaq isku dardaarmay oo dulqaadka isku dardaarmay marka waxaan ka rabaa wa amilu saalihat ila diinka in la barto oo lagu amal fala la rabaa labadan xadiis waxaan ka qaadanaynaa kurba haday ku hayso oo aad rabto ilaahay inuu ka faydo dambi dhaafid waasi'a ah ilaahay in xaqiisa aad ka hesho ilaahay raxmadiisa ballaaran inaad hesho ma rabtaa wax laga fakaraya ama maya la dhahayo ma qof kasta ha yudhi adoo cibaadadii kala wada gaar ahaan salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qaybtaas waxaan uga baxaynaa barakayn ahaan salliga nabiga